cabsi uu ka qabo coronavirus awgii ayaa ay 100 kilogaram ku kordheen miisaankiisa. Waa qiso cajiib ah oo ka dhacday dalka Shiinaha, gaar ahaan magaalada Wuhan oo ah halkii uu ka dillaacay xanuunka adduunka wareegay ee coronavirus. Waxay qisada ku bilaabaysaa ninkan magaciisa oo la yiraahdo Shua waa wiil 26 sano jir ah oo ku nool magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Cabsi uu ka qabo fayraskan awgeed ayuu Shua muddo 5 bilood ah gurigiisa isku karantiimay, isagoo aan mar kaliya ka soo bixin. Nasiib daro, guri fadhiga bilaha badan ahi iyo cuntada uu cunayay oo badnayd ayaa sabab u noqday in miisaankiisa oo markii horeba sarreeyay uu 100 kilogaram sii kordho. 2 toddobaad ka hor ayaa qoyska Shua ay mas'uuliyiinta caafimaadka dowladda la xiriireen si ay ugu wargeliyaan xaaladdiisa sii xumaanaysa. Koox howlwadeenno caafimaad ah ayaa loo soo diray oo qasab guriga kaga saaray. Waxaa hadda xaaladdiisa caafimaad lagula tacaalayaa isbitaalka Zhonggan oo ay leedahay jaamacadda Wuhan. Master Shua wuxuu hore uga shaqayn jiray rug ganacsi oo internetka laga isticmaalo oo ku taala magaalada Wuhan. Hore miisaankiisu wuxuu ahaa 180 kilogaram, dhererkiisuna wuxuu ahaa 170 sentimitir. Guri joogii badnaa iyo warwarkii uu coronavirus ka qabay ayaa sababay inuu cunto badan cuno. Dabeedna miisaankiisii ayaa muddo 5 bilood gudahood ku noqday 280 kilogaram. Maanta Master Shua waa qofka ugu miisaanka weyn magaalada Wuhan, mana awoodo inuu iska u kaco ama u dhaqaaqo. Waxa uu dheer xaaladdiisa caafimaad ee nafsiga oo aan aad u fiicnayn. Dhakhtar ka tirsan isbitaalka la geeyay ayaa sheegay in qoysku uu la soo xiriiray kadib markii Shua muddo 48 saac seexan waayay. Xaaladdiisa caafimaadna aad u sii xumaatay oo xataa hadalkii uu ku adkaaday, isagoo intaa ku daray in 4 dhakhtar iyo 60 sarkaal oo ciidamada ammaanka ka tirsan ay geeyeen isbitaalka. Waxaana baadhis lagu sameeyay xaaladda wadnihiisa iyo sababta ku keenaysa neefsiga oo ku adkaaday muddo 9 maalmood ah. Waxaa hadda dhakhaatiirtu isu diyaarinayaan inay Shua u bilaabaan qalliino miisaanka loogu dhimayo, laakiin qalliinka ka hor waa in 25 kilogaram miisaankiisa laga dhimo. Dhakhaatiirta xaaladda Shua gacanta ku haya ayaa sheegaysa in guri jooga badani uu sababo in qofku uu cuno cunto badan, waxaana ku taliyeen in qofku guriga ku nagaanayo uu biyo badan cabo si aanu cunto badan u qaadan, isla markaana ku dadaalo cunista cuntooyinka hodanka ku ah borotiinada iyo galka sida faasuulyaha iyo beedka. Sidoo kale waa lama huraan in qofku uu sameeyo jimicsi xataa haddii uu yahay mid fudud.